waxaanad qaatay gacan weynidana waxaan kuga arkay inaad noqotay ninka ugu gacan weyn adduunka weli title aniga haysta weli title kaanaad haysta ana haysta weli title ninka ugu gacanta weyn waa Xuseen Xabs ma sha Allah yaraantaadii oo kale maadooyinka aad lahayd wad xiisaysaa ama kuwa kugu dhibta badnaa aniga carabida oo kale waan diidi jiray ma galaas waan uga bixi jiray carabida iyo diinta laakiin inta kale waan ku fiicnaa maxamed waayo dhaweyd waxa kula soo darsay xaalad caafimaad see tahay imika xaaladaadu waa sidee imika aad baan u fiicanahay waayo markii hore waxay igu dhacay kelyahayga istaagay baahiyahaaga sida dharka kabaha xageed ka heshaa sayaa kuu suuragelay hortaniyow kabahoo kale waa la ii soo diraa oo shirkadda Nike baa ii soo dirta oo aan ku xidhanahay in dooraba imika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي ونكسن صاحب بيال كسر دواد عدنان شو وأنا جوا عدنان سيدا كلام حجرب كيف فردا هو ده شرط عبدي وكمدا أخيارتي ورياش هانشري واجي هراء حرتيني يا هذا مركو جهر سيسود دو حبيبي كهرنا بدل الدهسي برنامج كا عاونوا بدل الدهنسا والمرتدى مركو جهر رئيسا إنه سودوي وما تنت عدنان مركلي عدنان شو waxaa noo martiya ama maanta noo martiya goob kasta oo naga daawanaysaan iyo meel kasta oo naga daawanaysaan ba marti culus nin weyn ilaahay baa weyne Xuseen Maxamed Bisad Xuseen soo dhaw waxaan kugu soo dhaweynaynaa aan kugu soo booqanay maanta hoygaagii dad ka digneed magaalada London malabriha iyo adiga iyo waraysidii iyo wad kala baadi والله ورئيس waxay ugu dambeysay Hargeysa bishii saddexaad baan aynahayd nin la yiraahdo Baylot wariye Baylot oo habeen isna maalin gurigeyga saas oo kale igu soo booqday hadiyad marka Hargeysa ay ugu dambeysay waa tahay Xuseen maadaama nin caana tahay oo ilaahay hibisiyo dhar iyo qood ilaahay siiyo Xuseen bal marka ugu horeysa si aan dadka ugu sharaxno in yar nooga soo qaado noloshaadii iyo waayanimadaadii yaraantii أنا waxaan ahay Xuseen Maxamed Bisad waxaan ku dhashay magaalada Burco waxaan ahay nin reer Burco intii dambana qurbaha iyo ma garanaysaa waayuhu geeyay oo ku noolaa in badan imika Ingiriiska marka haddii aan isaga kaashakeeyo waxaan ahay nin reer Burco Xuseen Maxamed Bisad baana la yiraahdaa laangadha macruuf aad iyo aad Xuseen waxaad ku dhalatay magaaladii Burco ee gobolkii Togdheer ku soo barbaartay waxbarashadaadii dugsiyadii hoose iyo dhexe halkaas ku soo qaadatay high schoolkii hoose dhexe waxaan ku soo qaatay Burco sare iskuulka hoose dhexe Togdheer ayaa waliba laga qoray ilaa standard 8 secondary intii kalena qurbahan ku dhamaystay waxbarashadeeda intii dambe Xuseen ma sanad qurbaha joogta imika London oo kaliya waxaan joogaa 5 sano 25 sano laakiin meelaha kala soo martay Abu Dhabi baan idin 8 sano ku noolaa 8 sano Xuseen Maxamed waayo dhaweyd waxa kula soo darsay xaalad caafimaad see tahay imika xaaladaadu waa sidee imika aad baan u fiicanahay waayo markii hore waxay igu dhacay kelyahayga istaagay 2015 kii aan Hargeysa joogay Aroosa ayaan isugeyn bayna kelyahaygu taagan yihiin marka July baan kasoo noqday 2015 Hargeysa markaan halkan imina toos baan dhakhtarka u galay marka waxa la sheegay in labadeeda keliyood ba taagan yihiin marka labadii keliyood waa sidii imika labadii keliyood waxa la sameeyay transplant keliya la geliyay wala bedel 4 sanadood iyo badbaan bilaak leeyahay oo dialysis qaadanay oo dialysis ku socday Adnaan waliyo miya wala ibadlay waxa library ugu jirtay imika 5 sanadood ay badbay ugu jirtay yaraantaadii markaad iskuulka dhiganayso
sidan baa yani nin u dheero dadka ka dheera wahayd mise goorma xaaladani kula soo koran maya horta sida runtii dee istard waxa iskuulka laga qoray 6 jir baa iskuulka laga qoray hoose tog dheer waladeydii oo kale markii aan standard 1 aan dhigtay standard 2 aan soo gudbiyay 3 bilood baa iskuulka la fasax jiray markaasaan horeba u sheegay koritaankayga anigu ismabaan ogeyn inaan korayo laakiin macalinkayga ama maamulihii dugsiga hoose dhexe tog dheer ayay ogaadayba inaan dadka ka koray 3 bilood ee aan iskuulka maqnaa oo dee qof ardaydii ay magaranaysaa iskuulka mar la wada qoray dee ka koray oo ka weynaaday oo ka dheeraaday oo ka dhumuc weynaaday daahir baa ogaaday daahir cabdullaahi yasar markaa maalintii iskuulka lagu soo qoday maalintii koowaad baa isagaa ardayda iga soo dhex saaray oo igu yidhi mid tiid xuseen maxamed ibsade orado aabbahawiya Class-keedaad markaa wan babanaha waayo tuugii baan kusoo ayaan markaa geliyey xuseen waxaan maqlay inaad mataan tahay absolutely mataantaadu waa sida dadka caadiga ah mitirkeedu mataantaydu waa qof caadi ah xasnaa la yidhaahdaa way nooshahay haddana halkan ugu salaam 9 caruur bay leedahay waan malayn markaa 9 caruur bay leedahay waxay leedahay 7 wiil iyo 2 gabdhood maasha Allah iyadii caruurteeda halkan ugu salaam Allah yasmaak xuseen maadaama aad ka duwan tahay dadka caadiga ah waa nin xagga dharka aad u dheer tahay baahiyahaaga sida dharka kabaha xageed ka heshaa sayaa ku suuragelay horta niyow kabaha kale waa la soo diraa oo shirkadda Nike baa ii soo dirta oo aan ku xiranahay in dooraba imka ilaa adigu 20 sanadood bay iyada kabaha ii soo diraysay dharkana waxay waa wada special order oo aan tashaa imka dharkan oo kale Hargeysa ka soo tashay Hargeysa badanaa dhar ka tashaa East African Tailor waxaad leedahay yani dharkii Soomaalida saxda ahaa adiga arkay soo dharkan gashanahay waa from Hargeysa yaraantaadii oo kale maadooyinka aad lahayd waad xiisaysaa ama kuwa kuugu dhibta badnaa aniga carabida oo kale waan diidi jiray maan galaas waan uga bixi jiray carabida iyo diinta laakiin inta kale waan ku fiicnaa si waliba markaan iskuulka dhexe ahaa sayniska iyo juqraafigan xoog u xiisayn jiray sidoo kale qalqaali baad ahayd mise maya weligiiba qalqaali ma ahayn weligiiba ninkaa iska kuulkaabaan xuseen sidaan taariikhda ku maqlay waxaad noqotay mar ninkii ugu dheeraa marna waxaad noqotay ninka labaad ee adduunka ma weli waxaad tahay ninkii labaad ee adduunka mise weli waxaan ahay ninka labaad baan ahay weli ee ugu dheer dunida ugu dheer dunida absolutely laakiin waxaanad qaaday gacan weynidana waxaan kuga arkay inaad noqotay ninka ugu gacan weyn adduunka weli teetalka aniga haysta weli teetalka anaad haysta ana haysta weli teetalka ninka ugu gacanta weli waa Xuseen Maxamed mashallah we have a record holder here from this, every year they put out this beautiful book. This is 2003, the Guinness World Records, and he is very prominently in that book. He has the world's largest hands for a living person. Here's Hassan Bassad. And so you're very special there also. That's right. Well, that's amazing. So we're going to measure your hands. All right, first let's measure your hand against mine, Hassan. Now, what am I supposed to do? Measure the wrist and the tip of the middle finger. Okay, Hassan, hold it up one more time. Okay, ready? We'll get this done here. Start from there. Start from there, from the wrist. You hold that, Hassan. Right to the middle. Right to the middle finger. Okay, got that? 11 and a half. It's supposed to be 10, 11, something like that. It's 10 and 3/4 inches. Yes, very good, Hassan. There you go. The world's biggest hand. Let's just measure your hands. Let's
let's just measure Regis's hands to see, to compare. Hold out your hand. Maybe you could set a record for the smallest hands. sidoo kale dhalinyaronimadaadii maxaad xiisin jirtay maxaad is odhan jirtay waad ku fiican tahay sida basketball oo kale anigada horta annaga markii waddanku burburayay baanu la soo kacaanay oo dee berigaa dee kubadda waan ciyaari jirnay oo kubadda waan dee hobbigayga bay ahayd iskuulka iyo garoomada dee kaleba waan ku ciyaari jirnay laakiin wax aan interest in jiray ma ahayn sax waayo familygayga annaga businessman ahaa markaa shaqada dee dukaankayga iyo meheradahaygaas umaa mashquul ku ahaan jiray xuseen wadankii goormaa kuugu dambeysay wadankii iyadoo ay igu dambeysay 2015 ayaan waxaan tegay January 25 sanadkii ayaan tegay waxaana kasoo noqday April 10keedii 2015 weelashaa waqti loo buuxiyaa isbedelka sideedu malaha 9 bilood ma ayaan intaan moogahayba malaha isbedelkii markii 15 aad ka timi iyo 25 aad ku noqotay sideedu argaysa markii aad noqotay oh my god hargeysa kale baan u tegay hay iyo hargeysa weynaatay oo daafihii gaadhay oo imika xaggan galbeedka arabsiyaabay dee magaaladii u dhawaatay oo xaggan waad garanaysaa dee oo barkhalday waxay u jirtaa xagga khanaana biyashiinihii way dhaaftayba ma garata xaggan airportkana dee waad aragtay halkan la marayo toonba wax yar loo jiraaba haddaan la gaaninba maqaal baan maalin dhowda akrinay marka maqaal ha oo la soo qoray oo yaa soo qoray gabadh cadaan ah qoray marka waxay tiri hargeysa waxaan tegay 1994 kii waxay tiri adigu 94 meelahaas dhulka oo dhani wuxuu ahaa zero guriga kuma oolin waxba kuma oolin ka ugu dhowaa qof intee daartiisii duntay oo hareeraha untu wixii yaallay ka saaray boor yar ka horreystay way jirtay oo anaguba dee goobjoog baan ahaa 2000 waxay ku laabatay 24 way yaabtay hargeysa isbedeshay hargeysa maanta qofkii dee garanaya maanta hargeysadii hore naqanima hargeysa weynaatay wada building rooya iyo dhul wada dhismay laamiyo quruxdaada yaabayso hargeysa wada kaarayala meel la mara kaarayaan absolutely anbon kula joogaan kula garanayaa laakiin maalintaa iyo maanta isdhifrinka ka muuqda waad garanaysa hargeysa waayo hargeysa waxay noqotay caasimadaha afrika haddaanay ahayn taa yaa afraad ama taa saddexaad dee waxa la odhan jiray soomaaliya muqdisho ugu ma garanaysaa ayay ugu weyn laakiin anigu waxaan isleeyahay maanta hargeysaba ka weyn waayo hargeysa berigii hore afar waxood u bay ahayd laakiin maanta dawaqyada ka dhisan masha Allah way socotaa maanta dhinac walba u fiday hargeysa xaafadahan aad garanaynba faluuja ana weligeyba maqal maxamed moogaana weligeyba maqal 150 meel la yidhaahdo anigu daroodhe anu garanaya dee berigii hore daroodhaa la odhan jiray ma garata iminka 150 iminka dee biyashiini waxba uma jirto xaaf london bismillaahi raxmaani raxiim barkii oo dee cidlaa baan garanayaa barkii waaba la dhaafay imikoo buurtii masalaha xagga kale looga gudbay soodaga arkay markaa hargeysa waxay noqotay magaalo weyn ilaahay ha u siyaadee nimcadee masha Allah iyadii magaalooyinka kaleba waxaan leenahay horumarkaas oo idinku bogaadinayna xuseen maxaa caqabadaha kala kulmay intii aad noolayd dharkaaga aad nooga sheegi kartaa caawa والله هرت ولا دركو مرنا وفائدة مرنا وعلت مرت فائدة كلي هو وهذا قاعد تدك خمرة تدك خديرة هذا تدك ورنستا كودي يعني هذا ده سرنا سو
haybad gaari wiilhay adiga ku sii absolutely marna waa dhib صح wax toonaysaa talow waxaan adiga kaa muuqday dad kale baan ka muuqan waa maxay ma garatay صح caana uu kaa dhigayaa oo imika dee haddaan imika labadeenu hal qaamar aad uga qarsoonaysa anuu ma qarsoomayo ها adiga waa lagu wada garanaya absolutely Xuseen maxay tahay taladii ugu fiicnayd ee lagu siiyay ama aad qaadat ama aad maqasho taladii lagu siiyey taladii ugu fiicnayd inta aad nooleedeed maqashay ama lagu siiyey adiga tani guurso un bay kugu bilaabaya ha guurso ma guursatay weli xaas ma leedahay ya ayay ahayd haddii tusaale ahaan basketball ama kubadda cagta aad ciyaar lahayd teebaad xiisan lahayd aniga kubaddan daawashadeedu baa isku fiican aniga anigu horta ilaah bay dilayay iminka waan daawadaa sax oo daawashadeeda aad baan u jecel weliba footballshaan xoog u jeclay inaan daawado oo dee naadiyadan ingiriiska oo kale dawaad aragtay premiershipka iyo champion league iyo waan daawadaa laakiin Arsenal supporter baan ahay ma garatay xuseen weli ma isku dayday inaad la kulanto qofka dunida ugu gaaban شعيب معد بقى كجاون شعيب واد صرفتين شعيب جاب ها شعيب جاب من حس كي جاب أبوها يا absolutely ها شعيب جاب شعيب كلام ملح يا عاد بن سلامين ملا ninka ugu gaaban adduunka uu noqonaya shacayb kasta arkay gabadh ka gaaban oo adduunka jirta niyo horta sida runtii shacayb wala gaabay oo ay ninka imka adduunka ugu gaaban oo maalin dhaweyd ninka adduunka ugu dheer la sawirnaa turkiga ayaan maayay inay ahayd meesha waa nin baan maayay sawa gabadh waa gabadh ha niyo gabadha hindida ana waan arkay laakiin ninna waan arkay gabadha yare iyadana waan arkay waan ka daawaday waxaan maayay inaan newska ka daawaday waan maayay gabadh gaabani way jirtaayo mar hindiyana inay ahayd ma sawirnay ha laakiin life ma aan aragano حسين مدام nin aad u dheer tahay oo haybada Ilaahay ku siiyay ma kula soo xiriireen dadkan raba inaad u xayeysiiso ama mariyo kale ama business oo kale ama qaybta filimada oo kale walaal sida runtii barigii aan wadankan Ingiriiska imi hawlahaas waan ku jiray laakiin markii Guinness World Record ka angelayay baa qoladan The Sun newspaper ayaa qoraal qortay inaan anigu xanuunsanayo aan leeyahay tumor Grand Hormones wax leeyahay oo Grand Hormones ka xoog igu furay marka halkii ayaa waxa iga soo raacay nin professor ah oo waxaan ku takhasusay وأنكي أنا كورتان كي جتوتي دكتور حسيشة الدوين كي عن مرجع استعمالي سيل اللي سي كورتان كي جتوتيني وأكو سلفت كي يسميه كلي هيجا أفكتجري مركا دوينكو مركا هريلا وسيو دخاتورتو بدنا ما شيء سلفت كده لكن وحي أي قبنا يسمى كل شيء لكن واحد دبعته أي كوكين يسوي واحد ما قرنا يساعي أتكلمكم من كرتو واحد حاجة ديام بقول كذا سنة سجاش بيكونا يا سامبير سر أفكت له بيكونا يا ويا سنة ويخبرت مرها dawadaas aniga kadnigayga waxay shayban boqolkiiba 90 qaba laakiin koritaanka waa laga joojiyay koritaankayga imka ma socdo marka ma isku xirantihiin wali waa isku xiranay imka bishanteeda imka baan arkay message ay soo direeno bisha shanaad 12keeda oo ka ay balan leh فحسين سنة كل جات شوتي قارمها كوريتانك. حليت شي 2002 أي دولة الله يبلع. مركاي صلاة سنة ضربة وشقي. مركي تنبع ليقولي كريها قوي
damage garoob annan rubay u shaqeynaya ayaan joojiyay anigu dawadan ku yidhi dabadib haysiina waayo dee markaan arkay in kalyahaygii dhaawac gaaray dee lagu yidhi midna 75 bay shaqeynaysaa midna waxay shaqeynaysaa 45 ayaan ku yidhi hal dawada layga joojiyo markaa dawadii sidii anaaba joojiyey iskii u joojiyey waa si wanaagsan xuseen haddaynu dib u noqono wadankii markaad ka warramaysay waxaa jira magaalooyinka la soo marta magaalooyinka kale sida xoogaa u koraya wadankii haddii aad soo aragtay maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi horta magaalada berbera la yidhaaho iyaduna xoog bay u koraysaa waana magaalada ugu quruxda badan la iminka somalilan xagga wadooyin xag dhirayn xag magaranaysaay nadaafad waa magaalada keliya aanad ku arkayn wax xoola ah iyo qashin oo meel walba foosta iyo wax loo sameeyey 12 habeenimo markay gaadhana waxaad arkaysaaba intaasoo kunoo dumar oo wadooyinka xaaraya ayaad arkaysaa berbera nadaafadeeda iyo maalin baan gaari aan watay baan maqaaxi yaroo yemani al-saciidi la yidhaaho ranwadka shadayre agtiis kasoo horjeeda ayaan gaariga dhigtay dabeedna midun baa yidhi gaariga makuu maydhaa haabaan ku leeya maydho waxaan galay meesho meel yaroo baaroo xagga hore abeylada waan iska fadhiistay haddaan ku idhaahdo qolada dowladda hoose qaar ka mid ah iyo askar wada socdaa yidhi gaariga halkan yaa ku yidhi ku maydh saan ku yidhi maxaa lagu maydhay waa wadde biyahaas wadadii daloolinayaan markaa fayn baan kuu jaraynaa faynka maxay ku jaraysaa maan ku yidhi reer berberaamaane gaarigayga waaban ka qaaday meeshii oo shadayre hortiisa oo meel geeda ku yaalaan oo bannaan oo aan ciida baan gaarigii dhigto halkiiba gaariga laygu maray saan ku yidhi weliba raalli ahaada haddaa ilaalinaysaan baa wadadii aad inoo ilaalinaysaan faynkana waan disinaya haddaad doonaysaan intaasaabay deeqday baan ku yidhi waayo haddaa inoo ilaalinaysanba wadadii iyo wixii ummaddu lahayd de maxaa ka wanaagsan sidoo kale magaalooyinka kale aad soo martay waniyow horta iminka intan dambe waan isqarinayo horta magaaladana kumaabada hargeysa iyo berberumaan u dhexeeyo waayo dadka inaan dhex galaaban diidayay oo waan isdhowrayay dee reerkan intaan ka maqnaana waan la joogay moogta waqti siinayay xuseen siyaasadda ma xiisaysaa base haddaad siyaasi noqon lahayd maxaad noqon lahayd waniyow siyaasadda dee intii aan xanuunsan siyaasi waan hayo dee nin xisbiga wicd ka tirsan baan ahaa sax laakiin intii aan xanuustay aan dee dhakhtar u ga'ay siyaasadda ma inaad dushaastun ka daawado da imika mise inaan xisbi ahay midba saddexda xisbi waa isku qaymid ee iminka jooga waa isku qaymid midna ma taageersanin midna ma necbi ma garata siyaasadda halkaasaan kala taagan markii hore maxaad inaad xildhibaan noqoto barigaad siyaasadda ku jirta ma inaad xildhibaan noqoto beri dhaweed ba inaan xildhibaan noqdo waan doonayay laakiin markii aan arkay dee iminka wixii waxay noqdeen localkiiba dib ugu noqonayaan moogta wixii dee xisbiyadu sidii aynu doonayn u shaqaynba maayaan iminka qoys weliba wuxuu doonaya inuu xisbi gaara samaysto xisbiyadana waxaa lagaga dee loo sameeyaba in qabyaalada lagaga baxo laakiin haddana qabyaaladiiba dib inoogu celiyeen qabyaaladiiba dib inoogu celiyeenoo iminka dee marka xildhibaan la dooranayo dee maxaa taqaanaa lagu dooran maayo laakiin qoyskiisii hoose horta waa inay isku soo raacaan ay iyagu xisbigii keenaan odayaashiisii waraaqa u soo saxeexaan markaan arkay faamigaygii hoose oo iyagii dee anigunba maahe laba kale joogaan markaan waxaan ku idhi anigu gadaal baan marayaa bal horta labadan hala kala saaro ma garata maxaad tale soo jeedi lahayd maxaad isleeda waynu kaga baxaynaa qabyaalada saas ee qabyaalada xisbiyadoo in adkaysano iminka ingiriiskaynu joognaa laba xisbi oo iminka ugu waaweyn conservative iyo laborka labadaasunba meesha isku bedbedela ma garatay wax
xisbiyo cid kooto ugu xidhanna ma jirto mana iminka xisbi kale oo independent baa soo baxay Soomaaliya argo iminka Labour-kii ku yeeriyay oo Labour-kii oo dhan iminka kuwii ugu waaweynaba ay ku biireen oo isagina iminka laga baqayo inuu waddanka qabsado midda kale anigu waxaan oran lahaa xisbiyada qaranka iminka jiray Somaliland ee saddexda ku kooban waa in qaar independent la furaa waa in doorashadan dadku ay kiiga u galiyaan ee buuqa badan iyo isdiiwaangelin iyo ma garanaysaa kharashka badan ku baxayo dawlad iska daayaa iminka halkan waad aragtay oo marka doorasho dhacayso ma buuq iyo qaylaad aragtaa iyo bandam iyo bacbacbaad mar ayaad aragtaa warqad yar baalkaan guriga noogu soo dhacayso konsolkaas noo soo dirayo konsolkaas marka noo soo diraa magacaygii baa ku qoran halkaas ma la tegaynaa iyadoon rashna hayno cidina riixayno askari taagnayno ayuunbaan warqadeeda dhibina halkaa galon balaanaya kaanu doonno ee maskaxdayda ku jiray iyo kaanu doonina codka sunan baanu siinayna laakiin dee waad aragtay waddankeennii maanta 2 bilood baa la odhanayaa waxaa soconaya ololihii markaasaa intaasoo kunoo bilyan oo doolar naga khasaaraysa maanta abaaraa jira waddankeennii xoolihii iyo dadkiiba haraad bay dhimanayaan iminka shalay haddaanu madaxweynuhu joojin dee waa kuwii celebrationka dhiganayay wasiiradu intaasoo kunoo doolar ku kharash gareynaya xaflad yar iyo sanad guuradii sanadkiidiya inta ay joogeen iminka dee taasi caqli maaha dadkeennii baa maanta abaara u dhimanaya xoolaheennii baa dhammaanaya ummadeennii baa gaajaysan kuwaa ha ku gufeeyo biyo ugu dhaami laakiin iminka anigu waxaa soo jeedinayaa oo aan halkan doonaya inaan mariyo waa bal waatan doorashada la leeyahay bisha 6 bay dhacaysaa dalkeennina abaara iyo dee baan baa ka jira waa ilma adeerayaalo bal inaga joojiya taasoo bacbacdii iyo diiwaangelintan iyo waxaan iminka la isku marlaayay inaga joojiyo intii awal bay isdiiwaangelisay tiradeedii waa la hayaa oo qaarkoodii way haystaane kharashka aad ku bixinaysaan bambamtan iyo bakbakdan ummadeenna maanta haraadan ha lagu waraabiyo iyo xoolahana leedaya waa in ma garanaysaa baad iyo biyaba loo doonaa ummadda ha loogu gurmado ummadda ha loogu gurmado حسين سياسيين كل حجرني ما أنت هدير وبرهضة هذا عنا وبرشة كتقانو وحسينه بل مدحوين نقو حد برشة وقبل أنا أعرف إلهي أنا مدحويني جمد جو وايو وحنا قاعد خرابة إلهي نوي ويدينيه ومداس أولنا دي مسؤول بان كان قناة يهدان مدحوين نقو انتوا حاجة حقوق بيقولي تي إلهي بان حق صوراح marka ilaahay bay ima keeno horta taa ilaahay ba ima keeno waayo markuu dee Umar bin Khadaab oo kale radiyallahu anhu dee qofka jaarkiisa gaajoonaya uu ogaa Soomaa dee madaxweynaheena wax laga doonayaa taa miyaan qaadi karaa marka anigu miyaan kasoo bixi karaa addoon yar baan hay oo daciife marka ilaahay ima keeno saaxiibta لكن هديبة الدعبة لحيدة حاد قبل الدوشة حسين هدين حاجة سياسية كسر نقولنا ورئيسيني قيبتك مددالة حسين يفنك سيسكي عليك وفنك وقاد بنتش عليه فنك قاد بنتش على هاي حسها ودقيسته مرمروان كتورتها لكن إمكا سيدي هركميه حسين فنانين تدقيسين شرت الله أكبر بقرة عطر خطر ظاهر عيال الله يرحمه إلى أن حريستنا هسيه سارة أحمد محمد سليمان مقال دي فنانتي هريبا إيا فنانينها ما قالت سينب عيها كتيجي يا فنانينتي هرود فنانينتي دحامة كوة دنبي حدا ياد سلادة هاي حسين مركا وسيدار واحد دقيسو أما ودم ميلها كمقلها سهودة فنانين تسوى فنانين أنا هرتا كواحدة حدقاها جيسك
بيك يو خليه هيسيسا وان شاء الله هاي صوت الرحمة قبل لو بحية وان شاء الله هاي يروب جين فرحية أحمد عداوة فسكة وان شاء الله هاي إذا نقعد كده هذا عبد الرحمن وخليه وان شاء الله هاي قعد كده فنانين بدنوا يريروا يمكن صباح ذي ما ميرة يا استوى هيسيسا وان دقيستا اللهم صل على محمد نستحين رو قبل لا يرهض وإذا نعود ونكسب بجرته قبل خلق الله يرهض لك وعيس مريا لك حاجة وعيس فنانين ما شاء الله يا أي أو مقارنة ساي عود ونكسب بجرته مربع جرتها SBK aad qaadaysa الله بريجاس ده بري هراء هيدا بريجي ده آخر الزمان بهيد لكن مخا إلهي يقوم وقع عندك يستعون لكن مخا واحد طبعا حقيقة خيمنا يا حسين وهدام بل حكاوي ديو هيسا هي هراء فنانتي هراء تعليد فناند إلهي ونحرست خضرة ظاهر هيسي هيباد وقوش حلا وف عليك حسب بدن ده خضرة هيسي حسب بدن عمر يقول علي حسيه دبرجا عند اليرة حين قاعد يسميه خطر ظاهر سيد الله بيستعله فرسنا يفيد ليس أنا يفيدك أديان وحلا مدودة حسيه دي وايو لكن ما شاء الله فريسة مدوات بدنابي نرورة خبضتك waa tahay saaxiibayaal caawa halkaasi ayaan barnaamijkeena idin ku soo gabagabaynaynaa waa anigoo ah Cadnaan iyo hoodo garabkayga fadhida sidoo kalena Xuseen baa halkan fadhiya oo martay barnaamijka caawa inoogu ahaa hoodo asxaabta maxayna kaga tagnaa asxaabta waxaan leenahay meel kasta iyo goob kasta iyo xilli kasta oo daawanaysaanba aad iyo aad baan idin salaameynaa waxaan idin leenahay barnaamijkan xiga hamoogaanina sidoo kale Cadnaan show iyo walaashay iyo saaxiibkay aad baan idin soo dhaweynayaa booqashada gurigayga igu soo booqateen marar badan oo kalena igu soo noqda insha allah sharaf bay noo tahay inaan caawa soo booqano welibana aad interview naga aqbasho waxaan ku ri aad bad mahadsan tahay idinkaa mudan 100 jeer